السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada jana galayaal xiisadaan waa xiisadii live-ka ahayd oo aan week walba ku eegi jirnay suuqa week soo socda waxyaabaha ka macquulka ah sidoo kale tan aan dib u eegi jirnay week la soo dhaafay qaabka suuqa aan ka filaynay inuu u dhaqaaqay in kale insha Allah taariikhdu caawa 8 November daan hore u socdo si aad ugu soo beertid ama xiisada live ka socoto si aad ugu soo mid noqotid ardayda ku jiraan waxaad imaadaa qaybta serviceska website markaad joogtid qaybta resourceska meeshaan ugu hooseysa oo weekly forex and commodities analyze ku qoran tahay markaad ku soo dhufatid page-kana imaad doontaa page-kan marka waxaad ka arkaysaa xiisada la geli rabo oo meesha uga soo beeri lahayd su'aal ahaan habeen kasta 2 saac bar oo kala soo galnaa marka 2 saac oo kala ayaa la soo geliyaa oo lagu soo post gareeyaa page-ka meeshaan ku soo qabsanaysaa join via Zoom app ama join via web browser mid markaas aad u baahan tahay sidoo kale fiidiyowyada hore loo soo dhaafay weegyada horeeto fiidiyoyadana aad u baahan tahay inta dib ugu baaran kartaa oo aad ka soo daawan kartaa laakiin YouTube-ki uu geenayaa si toos ah meesha ka daawanaysaa insha Allah okay perfect intaas markii laga soo tago waxaa jiro services iyo waxyaabo aan qabano oo ardayda si fiican ugu warqabaan haddii aad nagu cusub tahay oo kale qaybtan registration markaad imaadid aad haystaa option fara badan haddii aad tahay tusaale ahaan qof oo ku trade gareeya maxaa la yiraahdaa system aan ahayn systemkeena ama oo istaraatiijiyooyin kala isticmaala waxaan bixinaa charteska suuqa waxay ka saacidayaan time frame-yada kala duwan 1 hour-kii 4 hour-kii iyo daily iyo weekly suuqa jihadiisa inaad ogaatid lacag heblaayo jihadeedu waa xagee kadibna istaraatiijiyadaada ama systemkaaga ku dabaalanaysaa bilaa tawfiiq suuqii sidaas fursad ugu baaranaysaa haddii aadan haysan aad tahay qof boqolaal istaraatiiji soo tijaabiyey wax u shaqeeya waayey oo qof system cusub hadda raadinaya soo luga forex bilaaw aan ku ahayn waxaan ku haynaa oo aad fursad u helaysaa inaad baratid waves sidoo kaleeto qaabka anaga aana ugu talagalin ilaa wave ma aan istaraatiiji horta ayada kaligeed oo qalalan ma aan istaraatiiji oo suuqa kaasina meel aad ka gashid meel aad ugu baahdid laakiin anaga system gaar ah leenahay system gaasaan qofka markaan waveski barno aan waxa si tusnaa qaabka lagu trade gareynayo because ma aha suuqan kaliya inta 5 daqiiqo ka sameeyay 3 nasiina ku si inaad iska trade kira iska raacaysid saas way ka duwan tahay qaabka aan u trade gareyno dadku qaabka u trade gareeyaan waveski marka ay maqlaan ama qofku uu ku cusub yahay kala waxay tahay waxa uu aaminsan yahay suuqan dhab inuu yahay 5 daqiiqo 3 nasiina ka sameeyo kadib la iska sii raaco سؤال على اللي سوق أو رقاقي بقول بقول كوكسيو رقاقة لو سمعناها يسكرع محنوع عصا كلا كمتر الدنيا واحد سيستم جرم معها واحد شقينا معها وفكرتهم والشقينا أساس وقت هاي لكن مكون قناة استراتيجية من الجارسين سوق بوليس نيس أو بعدها حياة وبدن بوليس كعاون هيا سيدا كلاته سيستم فريق إن ده ستي أو حل اللي ترد جرير أو في سكاس أدي أدخل ترد جرير ساعتها waqtigii saxda ah aad tirtigaa lahayd ku sheegay ay u baahan tahay marka inta laga soo tago education-ka waa $1 kaliya oo qofka lagu talagalay hal mar waaye bil kasta lacag bixi loogu dhahayo hal mar aad iibsanaysaa 4 week ama hal bil ayuu koorsada socotaa markii aad qaadato insha Allah istaraatiijiyad kaliya lagu baraayo sidoo kale waxaad maran doontaa maxaa la yiraahdaa qaabka lacagta ku maamul lahayd iimaan shadka laga dhisaa waa saddexda qodob ee ugu muhiimsan qofka so professional trader wuxuu baahan inuu system haysto oo qaybta ugu fudud waxa ku xigta inaad tahay qof risk management-iga yaqaan oo ka dhisan sidoo kale waxa ku xiga qof maskaxda inaad ka dhisan tahay oo expectation-ka aad ka haysatid trading oo dhan inaad hadda u baahan tahay because qofku markuu cusub yahay muddo xataa markuu ku jiro still waxa ku programsan suuqan waa joogtahay lacag ma sameynaysid maalin kasta wax ka qaldan maxay dadka lacag ay sameeyaan dadku lacag ay sameeyaan adiga wax ka qaldan maxaa waa inaad isweydiinaysaa laga yaabo
marka training waxyaabahaas dhan lagu fahansiinaa marka wuxuu yahay expectationka saxda ah ee qof forex trader-ka ah suuqan uu kala kulmaayo waxyaabaha qiyaaliga oo dhanba insha Allah waa laga saaraa sida saxda wax lagu fahansiinaa sida dadka professional traders ku trade gareeyana wax lagu baraa maahan iska yaa maalin kasta system tijaabi maalin lacag khasaar maalin boqolaal akoon gub iska socmar soo soco inaad ku jirtid maaha marka insha Allah waxaas dhan waa lagu bari doonaa inta markii laga tago waxaa jira one to one training oo kan qofku wuxuu anfacayaa oo macnaha oo recommendation u siina education qofka soo bartay kan markuu soo baratid macalinka meeshan aad si leef u helaysaa any question aad u baahan tahay markaas weydiinaysaa laakiin markii aad education ka soo marna aad inta imaadid xoogo waxay ku noqonaysaa rafaad oo maxaa la yiraahdaa wuxuu macalinku kuu sheegay isla markii inaad feedback ka soo bixisid laakiin marka aad education ka baratid aad muddo wixii lagu baray aad practice gelisid waxyaabo badan ku soo baxayo oo aad u baahan tahay in lagaaga jawaabo markaas camal ku anfacay marka si fiican ayay ku anfacaysaa oo wixii dhamaa laga jaahil bixina oo lagu fahansiinaa because qofka inta hal mar lagu qabto oo aad cashir macallin ku dhigay ama video aad daawatay kaliya kuma noqonayso professional trader wajada maxaad u baahan tahay waxaan ku inaad dabaqdid qaabka u shaqeynaa soo ogaad waxa ka qadar marka day shaqeynayaan xitaa in aad sii raadisid ama qof kugu caawinayo oo ku dhahaya okay sidaan ma sameysay sidaan ma sidaan kala sameey ama waxaan sidaan ku dar ama sidaan yeel wajada kadibna adiga dan sii socotid qaladaadkaaga dan wax ka soo baratid soo ogaatid dan dib feedback u keentid wax noocaas oo kala waaye marka xaaladdu waa sidaas because qofka hadduu maxaa la yidhahdaa xiisad u qaatay oo kale mise video keliya oo daawaday professional trader ku noqon lahaay filmaanta waa la daawadaa soo maaha mise wax kasta oo ciyaaraha ka soo qaadba isla markii waxaas qofkaas uu sameynayo oo kale tusaale isla markii adiga waad aragtay keliya ma professional ma ku noqoto waa may waa aragtay keliya oo kor ahaan waa ka fahansan tahay hadhow samee dib u dhaada sameyn karnaa laga yaabaa soo maaha laakiin markii aad wixii isku daydaa samaysid aqooweysid haddana ku celisid mar kasta marka si dambe waa sii ficnaanaysaa perfect intaas marka laga tago overview xiisadana hore u galaa insha Allah waqtiga inuu ugu dheeraado ma rabo haddaan ku hormaro wiiga hore lacagaha online gareynay oo crosseska waxyaabihii isbedelay iyo qaabka online gareynay inuu dhacay kala sleegayna lacagtu ugu horreysay waxay ahayd euro GBP kadibna waxaan galeynaa caawa oo miski noo saaran lacagaha dollarka nagastin wuxuu noqon karaa asla fiiri doonaa insha Allah euro GBP wiiga hore suuqa meelaha uu marayay aaway 30 bisha 30 October oo wiiga hore ku xirmay 30 October macnaha wuxuu ku xirmay wiigaas aan la isgareynayno wiigan dhigo waa soo maaha wiigaas ka horeeyay macnaha perfect waxaa ku aan la isgareynay marka suuqa in correction kan from codis 11 September soo bilaawday uusan sidaan ku dhamaarin oo at least u baahan yahay inuu wax yar oo new low sida wax noocan oo kala u sameeyo laakiin lowgan uu saqaadin sida September marka sidii dhacdo wax yar oo hoos u suuqa yimid anyway sidaan uu yahay haddastaan suuqan uu ku bixi karaa like this hadda waa u dhaqaaqay kadibna masina yaro sameeyay kor oo iska sii aadi karaa possible sidoo kale waxaa possible ah inuu still u baahan yahay inuu niilo wax noocan oo kala sameeyo because correction kan wax complete oo muuqdo still waa isku qasan yahay marka insha Allah inuu wax noocan oo kala sameeyo direction ka waa bullish markasta waxaan sidoo soo galno ku celiya waxaan signal maahan sadaqna maahan kaliya waa direction kaas duu ku waafaqo istaraatiijiyadaada fursad ahaan uga faa'iideyso laakiin duu ku waafaqin ma aha inaad fursad ahaan uga faa'iideysataa mas'ala trade ahaan wisha waa kaliya high probability path kaliya waa ma ahan trade aan qaadanayno naga ardadeena oo ilmiga fantastic waxaa jira wax la yiraahdo high probability path
iyo high probability trading setup mujeda saasi loo qaybsan yihiin chartskaas caadiga xataa oo meesha ku jira way kala saaran yihiin qofka way u kala cad yihiin wixii fursadaha looga faa'iideysan karo astaamo gaar ay leeyihiin kuwan fursad looga faa'iideysan karno oo macquul ka tahay in suuq sida dhaqaaqan sameeyo sidoo kale tan way cad yihiin marka anyway high probability path kuwa sida ma aha signals setup ma aha si fiican la socotaan rajayna insha Allah jihadu waa bullish in loogan isdiibina rajayna insha Allah loogan inay taagnaadaan perfect lacagta xigta waxay ahayd euro aussie away 3 October meelahan ahayd perfect meelahan ahayd suuqan waxaa ka rajaynaynay this correction ka inuu ku filnaado horta soo dhaqa correction kan inuu ku filnaaday oo suuqa u baahan yahay inuu bullish yahay maxaa dhahnay haddii lacala uusan bullish ka saadaynin waxa uu sameeyaa inuu correction kan sii dheereysto suuqan waxa isku ogeen as long ay taagan yihiin kooxda 16 September in suuqan ani correction ta sameeyo kor u sii dhigi karo hada maxaa dhacday correction kii soo weynaystay kaliya simple like that soo weynaystay kadibna sidaan uu ku tagi karaa laakiin marka waxa laga soo tago big picture ka eegno marka aan iska fogeyno hadda anaga aan wax filayna weeygaan suuq markasta waa la beed gareeyaa chartiska xibaan inaad dib u fiiriso hadda focus kan waxa waaye 2 June suuqa bullback sidaan sameeyo waxaan ka rajaynaynaa weeygaan inuu dhan soo aado insha Allah iyo loogan uu qaadi karaa ama ma qaadi karo anyway next move muxuu yahay 4 hour taaganahay waqtiga soo kala yaraanin dhaqaaqa kore oo yara short term kor aado kadib downside weeygaan insha Allah kadib waxa xiga suuqa la kala arkaa markaas qaabku inta ku yimaado meeshaan qaabku ku yimaado waxaan doontaa haduu inta ay correction ku yimaado waxaan rajaynaynaa ka bacdi weegeeda xiga iyo wixii ka dambeeya bullish laakiin haduu la impulse caadi ku soo daato waxaan rajaynaynaa suuqan inuu loogan jabiyo hoos iskaga sii daato weegaan marka waxaan ka filaynaa 2 June in la keeno insha Allah minimum wa downside wa only direction si fiican la socdo insha Allah perfect euro aussie xaaladaas waaye JBBUD sidoo kale ayadana waxaan ka rajaynaynaa weegi hadda ahay waxaan ka rajaynaynaa intay taagan yihiin 12 September waxaan ka rajaynaynaa this correction kan weegi hore sameeyay waxaan ka rajaynaynaa inuu kor u sii baaso ma perfect ma aysan dhicin oo wax kale uu sameey karaa aan sheegnay oo video 10 ku jiray hadda xasuustaan waxay ahayd inuu correction ka dheeraysto simple like that sidii dhacday oo soo dheeraysto sida uu yahay haddana inuu dhameystaa possible oo sidaan ku taabo waliso ma possible oo anaga u rajaynaynaa waxaan u rajaynaynaa insha Allah inuu soo fiil gareeyo mar kale like this oo kale soo dhaweeyo kooxda inay isdiibin 12 September correction kan anyway noocan oo kala sameey kara suuqa kadibna bullish maxaa urjinayna after nasinadan waaye bullish after nasinadan waxaan urjinayna bullish insha Allah JBBUD ilaa inta taagay nasinada meelahan ay ma kartaa inta meelahan ay ma kartaa inta ay ma kartaa anyway meesha imaanayso waa muhiimadda waxay tahay in ay ka sareyso kaliya 12 September perfect JBBUD similar kan week hore maxaan ku saadaalinay correction kan inay xaggas inay meesha aan ku dhamaaday inuu suuqan korsii aadayo hada correction kuma soo filnaanin still maxaan taaganahay jihadu waa bullish suuqa 21 September way ka sareeya ilaa uu dhajo this correction ka waa soo dheeraystay sidaan uu yahay ku tagi karaa also sidaan lagu rajaynayna waxay tahay inuu correction kan uu dhamaanina suuqan aan ka rajaynayno inuu soo fiil gareeyo mar kale kadibna bullish
direction ku waa bullish wala intaas waxay ahaayeen week hore isbedelada dhacay sidaan oo aan la isgareynay isbedelada dhacay ama wixii dhici kareeto hore waa soo sheegnay soo ma suuqa waa ima correction uu sii dheeraystaa waa ima uu sii baxaa oo kaliya ku saabsanay perfect oo uu sii dheeraystay still jihada bullishkaas ma sii diidan arjanena correction ka anyway qaabkooda oo external noqon kara laakiin suuqa still short term ka waa bullish perfect كراسي ده تسوى تبغى لو أنقله ويجان وحفظ كنا صارم والعقيد دولار كا العقد هو رئيس ليه كسوان دولار كرت ملي حساسي ومرا ويجان هرت سفي عن كلام واحد probabilities كفراه بدن و 50-50 عن كده كده two way one لابد ده هو 50-50 محي كليين ما لهم كلهم مرة ولا قلت عندنا high risk waxa ay kaliya waxa tahay suuqa inuu correction big picture correction sameysanayo like this oo kale wada correction iskii qaan si fiican dareemaya waxaan noocan oo kale suuqa inta soo yara daato kadibna arkin oo isku shaqeeyo mas'aatan wadada aan u badinayna anaga ahaan insha Allah this week after correction kan hayar kaasoo dhiman kadibna waa bullish kadibna waa bullish also ma possible oo ayadana sidoo kale ah oo macquul ka tahay suuqa inuu sameeyo this way waxba inuu soo baanaanin inuu soo laabtay downside-kiisa ku sii socdo asma hadanaysa markaad picture ka eegtid this cycle from March inuu still socdo suuqa waxa ku socdaa wax ah taxanayaal ama sequences sida ardayda education si fiican u yaqaanaan taxanayaashaas marka suuqa ilaa taxadiis u dhamaysto minimumka looga baahan inuu dhamaysto oo uu socona oo ma soo laabanayo laakiin haddii uu dhamaystay oo bilaa transformation suuqa ay kana oo kadib uu iska sii socona suuqa marka inuu soo nasto bilaaba marka waxa possible ah in suuqan taxanayaashiisa uu wali waxa uu dhameeyay remainay oo daadasho u sii baahan yahay perfect we will see ana wajigeena waa sida this way inshallah kadib upside هي كسر واسيان التركيز صار هنا إن شاء الله وضل كلام سمعك الله بعد ما شيء نحتاج وتوز دايركت إنه لا زر واحد بيحكوا إحنا هذا نتا مركز سوق ماشي يماذا خاب كوكي يماذا أفتر مسينا ده يرتاح مركو ده ما يستو ده عشان هيك مركو ده ما يستو خاب كوكي يماذا بيحنا هذا نتا أو يسوي كستحدي إنه قال لي قاتوا مركز حد وقت حال قال تاني أنك ما قال لك سمع marka price meesha suuqa ka yimid lagu ogaanaa laakiin hadda yartaan saa u badanayno insha Allah this way perfect lacagta xigta euro USD ayadana waxa kama dibna iyo kaswaayda actually SP waxay reenay korsada soo sii aado kadibna downside waxa isticmaalayna ma ahan على support resistance لمن supply market structure waxaas dhan ma aha marka sidaan dhahayna suuqan saan u dhaqaaqa oo intaan yarta u dhimin sidaan dhahayna waxa ka tusaale qaadanayna correction ka nooc oo naftusinayo nooca uu yahay this one ardayda education baan u yaqaanaa kan oo kale markuu suuqa sameynayo magaciisa falaad ayaa la oo markaad baxdid intay ku jiraan marka correctionska ayagoo bilig iftiiriga marka imaadid mid kasta magacyadooda qaabkay u kala baxaan qaabka fikir loogu isticmaalayo oo inta ku jiraan daad waxba ka aqoonin inaad soo boqoto waajib ku tahay meeshan aad imaadid mujada wax badan aad fahmi doontaa insha Allah oo bilig iftiiriga
كما اللي بفتيري انترد لو قلا يهدو وأنا حنكبرنا سيستم أو استعماله اللي بفتيري قريب ده استعماله لكن ما إن أو هو تريد قاعدة دونس سواء على استعمال perfect this correction كان أكسوجنا دواليرا هاي قرر لو سيبحه كذي من أصوات لأن رأسي السعودة نيوزيلاند هاي هو إسرائيل still لكن حكر جينا ساس عمر بن عيادنا كذي من أصوات إن شاء الله لما لحقها ضدي أيدي شيء جاي درتان أو دولار كأي شيء جاي أو كليته ها possible cycle كان إنه still صعب cycle كان from March إنه still صعب سوقان وأبسط كيس كوسي صعب still لو دقائق أولي من أصول ما استرتاح لكن ما بدنا أبسط كيس لا صعب أبسط سائد بدنا سوقه أو سكة عشان دقائق دونه معه فواحد تصير دقائق حتى أو واحد كورة نقدر تا أو bull back to win it أما strength dollar هي سولو خلينا نقطع فسرتها دولار سون إنه ودي صار جننا إن شاء الله هدول دقائق عالية سماية حتى this one الذي يكسب صلاته هدول كم سماية حتى ولما يستر دقائق from March حنوع خلاص منا ما اللي هم دياردون واحد كون bull back ما دون طوله marka dollar awood inuu yeesho waa soo dhowdahay laakiin waxay ku xirnaa doontaa waqtiga ay noqon doonto time cid ugu nabijista insha Allah la socota perfect wadada ugu dhow oo hadartan dollar awood yeelanayo waa this way tan ku xigta waxay tahay inuu dhaqaaqa dhameystiraan simple like that kadib awoodiisa soo bilaawa doonta insha Allah sidaas aan rajaynaynaa perfect أنكسر لابتو أو لعبت نيوزيلاند هاد نيوزيلاند مركب عاور جانينا anyway إحنا وعنا براو جانينا إن شاء الله إني سمعنا إيش جارين كدي بيسودا بتاع شبي BUSD شبي BUSD أيها have possible has still in need this and so the way waxaa hogaaminaysa waa 1 September JBUSD 1 September si kasta kor ugu boodaa inay sadafna rajinayna insha Allah noocan oo kale inay samayso structure kadib downside kadib downside in kooxda muhiimadda ugu weyn waa kooxda 1 September inay isdhiibo suuqa 1 September ilaa inta u dhaxeeyo 23 September wax kasta ka filan insha Allah meeshaan dhexe wax kasta inay ka dhacaan qaybtan dhexe cost correction oo wada فهمت؟ أنا مع رجالنا مركوي قال حاول رجالنا إن شاء الله واحد استراتيجي نوعا وكذا. برافو. بعض صار يقول شايس إنه سبمنان لكن لا نستمر كوين كوادان صار. يشبكات طالب بعمران سيمبل لكذا. نوعا وكذا كذب باونس إن شاء الله. It can in a dropping rasa. Keep bouncing was sort of corners. Bouncing dollar also the then dropping rasa, man magaris. They all got Maran Nisogar. They got the Zogar is a 1.27 Malan.
لكن سلتانك وين كم سوق ان شاء الله بروفيت دا يوزلي قاعد تسوق تاغو AUD simple like that نوعا وكلا كدبنا داون سايد أما العيان ما بدنا أود كروسي آذان أود أوزي لا تام ما بدنا أود إنه يزيل هي لا تام ما بدنا أود إبام شبي بي يلا تا أو USB أهم مركز على بربربيكو يلا تام ما بدنا موجودا يورو سيدو كلتا واحد سولو واحد صار مركز أو دقائق كوين أو كواس إنه الريحة رجعنا يواكل بأود دولار سبب لكذا هذا معه دولار كامل وقت جانا نقطع دولار إنه وحن كده جينا أود إيش سما سبب لكذا أوكي perfect وحكي لنا ودنا رجعنا إن شاء الله وحرجعنا يا إن شاء الله أنت سمعك سوق قوية سبدل كده حوارك ده أنا ويجان لكن تحدر من إن شاء الله ويجان دولار مكة العضاء يسنو فرصة أهم دي لأيجا هتا مشي قف استعمالها حجابة كلا أم استراتيجية دي سو حيدرن أو وافقين لكن حالة على تاجين هاي تتحدر دي أتعدد سيستم كنا كتير كلا سيبل لك من الأساس السوق مرة إن شاء الله سوق أنا على واحد بدنا حاجة دولار كهديس أدوس عندنا كوب كريتو أي أنا قتلت وذي وقتها كما سنتي جنا قليا إن أنت سوق كوان جعلها حين بالنا ويجا هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.